السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha qaaliga waxaan ka hadlaynaa hadduu ilaahay yiraahdo lagjaradeen imtixaan ahaan hore waxaan ugu soo hadalnay general pharmacology ocular pharmacology antibacteria ama antibiotic kasoo hadalnay intaas nooc usoo kala qaadnay maanta hadduu ilaahay yiraahdo waxaan ka hadlaynaa laba lagjar antiviral iyo fungi ka hadlaynaa hadduu ilaahay yiraahdo guud ahaan haddii ish viral oo dhibaateeyo waxyaabaan ku daaweynayno qaabka aan u isticmaalayna ka hadlaynaa hadduu ilaahay yiraahdo inta nooc ee daawo ugu badan ee lagu daaweeyo haddaan ku bilaabno trifluridine waxaa loo isticmaalaa topical route of administration qaabka loo isticmaalo waxaa loo isticmaalaa topical oo gooj ahaan waxaana ku daaweynayna laba cudur viralka isha ku dhaca corneada ku dhaca herpes simplex keratitis iyo keratoconjunctivitis waa cornea iyo conjunctivitis inflammation markay noqoto sidoo kale the best one antiviral drugska waa acyclovir waxaa loo isticmaalaa oral ahaan oo afka laga qaataa oo systemkal ahaan waa soo marka oralkaas isaga wuxuu gaaraa 200 ilaa 800 taabil camal la isticmaalaa sidoo kale waxaa kaloo loo isticmaali karaa intravenous labadaas qaab loo isticmaali karaa waxaana lagu daaweeyaa herpes zoster ophthalmos waxaa kaloo loo isticmaalaa herpes simplex retinitis oo iriska ku dhaco sidoo kale waxaa kaloo jiro flaclovir groupkan antifungi waxaa jiro gruubo badan flaclovir farm clover jam clover noocyo badan ayay leedahay marka reero intaanba hadday u dambeyso clover hadday u dambeyso waa antiviral oo waxa kusoo xusuusinaysid waa sidoo kale flaclovirka waxaa lagu daaweeyaa herpes simplex keratitis iyo herpes zoster ophthalmiga lagu daaweeyaa farm clover waxaa lagu daaweeyaa sidoo kale herpes simplex keratitis herpes zoster ophthalmic sidoo kale oo isku mid waxaa loo isticmaalaa labadan hadda u dambeeya oral oo afka laga qaataa foscornet isigana waxaa intervenous loo isticmaalaa ama interviral haado interverial so marka waxaa lagu daaweeyaa retinitiska oo mataqaanaa posterior problem qofka markuu ku dhaco ayaa lagu daaweeyaa oo posterior segment of the eye jam clover isiga waxaa loo isticmaalaa intervenous oral ahaan waa loo isticmaali karaa sidoo kale sida lamid waxaa lagu daaweeyaa retinitiska oo inflammation ka sababo mataqaanaa qaybta dambe ee posterior segment fungin clover isigana waa lamid pseudovovir isigana waa retinitiska intaan hashaan dhammaan noocyadan drugska waxaa lagu daaweeyaa iyadana retinitiska oo posterior segment ku dhaca antiviral markii laga hadlayo antiviral waa most common use la isticmaalo wax nooc ugu badan loo isticmaalo waa ointment sidaas waxaan soo aragnay iyadoo topical la isticmaalaa iyadoo oral afka laga qaadanaya soo aragnay laakiin nooc ugu badan waxaa loo isticmaalaa laha ointment oo 30% soo marka 5 times la isticmaalaa oo 10 ilaa 14 days oralka waa 5 times asiga la isticmaalaa 5 waqti la isticmaalaa 10 ilaa 14 days la isticmaalaa intravenous zoster ophthalmic guud ahaan indications waxyaaba loo isticmaala antiviral waxaa lagu daaweeyaa herpes simplex keratitis iyo viralka uveitis-ka ku dhaco viralka sababo uveitis waxaa la dhahaa iriska ciliary body iyo choroidka oo qaybta dhexe mataqaanaa middle layer isha ay lagu daaweeyaa noocyo badanaa jira intaa soo sheegna keliya ma antiviral drugska waxaa kaloo jiro federabin sadarabin noocyadan badanaa jira jam clover eridinorodine noocyadan badan aad iyo aad u tiro badan yihiin marka sidoo kale waa viralkan waa corneada ayuu ku dhacay qaab wuxuu sameeyey oo mataqaanaa oo xariiqmid oo mataqaanaa kan waxaa isha fluorescent lagu shubo kadibna mataqaanaa baaritaan lagu sameeyo oo daawooyinka drugska oo diagnosis lagu sameynaa lagjarkeena xiga waa antiviral waa kasoo baxday noocyaha ugu caansan ee wixii lagu daaweynaa antiviralka 3 nooc ugu weyn midda kood waxaa loo yaqaanaa Bolinis group nooca labaad waxaa loo yaqaanaa imidazole group nooca saddexaad waxaa loo yaqaanaa floriditis bromidis group loo yaqaanaa bromidis groups loo yaqaanaa nooc koowaad haddaan ku bilaawno iyo waxa loo isticmaali doono horaagsan laakiin noocyada groupka ayaan isticmaalnaa nooca ugu horeeya boliniska si groupiska waxaa waa nastolina ku jiro amitriptyline ku jiro natamycin ku jiro saddexdaas nooc waxaa waa groupka oo boliniska sidoo kale waxaa kaloo jiro group oo imidazole group reero zola ugu dambeeya iyadana waxaa loo yaqaanaa chlorotrimazole micoconazole icoconazole
ketoconazole, fluconazole, itraconazole. Groupkan waxaa la dhahaa rareconazole oo waa groupka antifungi ah. Sidoo kale ugu dambeyntii floridate bromidis groupka asigana halkan nooca ugu caansan oo flutoxin flucosol. Sidoo kale antifungi waxaa loo isticmaalaa qaabka oo administrationka u dhaca. Amitriptyline B-ga waxaa waaye solution ahaan loo isticmaalaa, waxaa lagu daaweeyaa fungi oo corneal keratitis-ka ku sababa endophthalmitis guud ahaan loo isticmaalaa. Sidoo kale gudaha endophthalmitis-ka fungi oo ku dhaca asigana bacteria waxyaabo sababa loo mataqaana fungi sababo asigana loo isticmaalaa. Sidoo kale netamycin-ta waa 5% oo topical oo gooj ahaan loo isticmaalaa. Sidoo kale asigana waxaa loo isticmaalaa yeast-ka oo blepharitis-ka sababo, fungi blepharitis-ka sababo. Sidoo kale conjunctivitis-ka fungi sababo. Sidoo kale keratitis-ka fungi sababo. Intaas baa loo isticmaalaa. Fluconazole asigana laba qaab loo isticmaalaa, topical oo gooj ahaan ama oral ahaan in loo isticmaalo ama intravenous in loo isticmaalo, saddexdaas nooc. Marka asigana waa yeast of keratitis iyo endophthalmitis, saddexdaas nooc loo isticmaalaa ee lagu daaweeyaa. Itraconazole laba qaab loo isticmaalaa, topical inuu yahay gooj ahaan ama oral afka in laga qaado. Yeast iyo fungi endophthalmitis, saddexdaas waa lagu daaweeyaa. Sidoo kale ketoconazole oral ahaan loo isticmaalaa, endophthalmitis iyo keratitis lagu daaweeyaa. Micoconazole 1% of solution oo fungi keratitis lagu daaweeyaa yeast-ga. Sidoo kale antiviral marka laga hadlayo saan soo sheegnay saddexda group horta guud ahaan waxaa loo isticmaalaa corneal ulcer-ka fungi sababto indications-ka waa. Sidoo kale fungi retinitis-ka qaybta dambe endophthalmitis labadaas oo lagu daaweeyaa. Common use nooc ugu badan ee mataqaana la isticmaalo hadaan soo dhaweeyo nooc ugu badan ee la isticmaalo waxyaabo loo isticmaalayo commonly waa Bolinas-ka group 1-ka wuxuu damage gareeyaa cell membrane-ka oo fungi ee sameeysa cell membrane ee sameysata dhibaataysan. Daawooyinka oo burburiyo oo dhibaatay waxaa kamid ah damage gareey amitriptyline B, netamycin, nystatin waxayna side effect-gooda waxaa nephrotoxicity laakiin iyaga side effect ay leeyihiin. Side effect-gooda waxaa waa neerfaha ay sumeeyaan oo dhibaato gaarsiiyaan. Imidazole groupkan rareconazole asiga waxay ziyaadiyaan mataqaana increase permeability-ga oo mataqaana fungi cell membrane-ka ay ziyaadiyaan. Marka waa groupkan asigana ketoconazole, fluco iyo micoconazole waa. Nooc u dambeeyo flucosides asigana inhibition wuxuu ku sameeyaa oo joojiya protein DNA synthesis, DNA in la sameeyo ayuu joojiyaa. Kan waa mataqaana asiga oo caadi ah oo fungi cornea saan u dhibaateeya fungi ish soo galo. Sidoo kale iyagoo loo isticmaalo waa kan oo mataqaana oo daawo ish lagu shubo oo examination lagu sameeyo. labadaas lecture kaga hadlayna maanta hadii la yiraahdo in kaga mahadcelinayaa daawashada video. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.